walaalayaal wasaaraddan ragga hore uga soo shaqeeyey iyo ragga hadda loo magacaabayba way fahmi karaan ahmiyadda ay leedahay. wasiir xasan wuxuu inoo taxay tallaabooyinkii wax ku oolka ahaa ee u qabsoomay inihii 20 bilood ahayd ee uu joogay xilkan. walahana waanu ku wada jirnay istiraatiijiyado iyo sharciyo bilowna u ah run ahaantii aasaasna u ah in wax weyn laga qabto labada aag ee kala ah biyaha iyo tamarta ayay wax ka qabteen. qaarkood golaha shacabka yaalaan, qaar golaha wasiirada la geeyey. agaasimaha oo run ahaantii nin aad ugu fara dhuudhuuban arrimahana mar dhaweedu warbixinna siinayay wuxuu nooga warramay detailska hoose iyo qorshayaasha halkay u marayaan. walaalayaal aan u mahad celinno horta mas-uuliyiintii hore saaxiibkay xasan wasiirka uu ugu horeeyo haddana dee xildhibaana oo golaha inala jooga, wasiiru dowlayaashiisii ku-xigeenkii iyo agaasinka howlwadeennada halkan fadhiya iyo inta kale aan halkan ka muuqan balse ku aloosan ka shaqaynta howlahan muhiimka u ah qaranka Soomaaliyeed. walaalayaal aynuna soo dhaweyno jaamac takhal wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka oo iyana hawshan loo igmaday. ilaahay ha ku asturo xilkan weyn ee dusha loo hubiyey. waxaan rabaa inaan kula dardaarmo jaamac waa nimaanu saaxiibanahay, xildhibaanan wadanahay, mas-uuliyiinta kalena iyana waa soo dhaweynaynaa. nin dhallinyaro aad u firfircoon weeye, hogaamin leh. waan ku rajo weynahay inuu hawsha halkii ka soo wari doono. aqoon-yahan ah, dad wadna leh oo muhiim weeye. hogaamintu waa inaad dadka isku wadi karto. walaalayaal waxaan rabaa bal inaan in yar idinka bidhaamiyo xajmiga iyo miisaanka ay leedahay wasaaraddan ee la rabo in shaqaaluhuna uu fahmo, dowladduna guud ahaan ay u fahanto. mudane wasiir iyo howlwadeennada kale waxaa idin sugaya oo gurmadkiinna u fadhiya dad Soomaaliyeed oo haddadan aynu fadhino ooman oo biyo la'aan naftoodii ay halis ugu jirto. waxaa idin sugaya lafdhabartii dhaqaalaha Soomaaliyeed ee nolosheenna ay ku xidhnayd oo xoolihii ah ayaa iyana idinka war sugaya waxaad u qaban doontaan. waxaa idin sugaya beerihii oo iyana nolosha aasaas u ah. waxaa kaloo idin sugaya warshadihii wax soo saari lahaa ee xoolaheenna iyo khayraadka kale rabbi inagu galladay lagu warshadayn lahaa oo lagu iibgeyn lahaa oo adduunka aynu kula tartami lahayna idinka ayay idin sugayaan. Soomaalidu waxay tirahdaan nin la sugayo adna yaad sugu. nin lagu seexdo ha seexan, xil baad sida ha seexan. walaalayaal nimankan ajaanibta ah ee horumaray dalka horumaray waa kuwan dayax gamceed iyo wax u dira hawadaas sare meerayaasha hal shay bay ka baadhaan war meesha biyo ma lagu ogyahay bay yiraahdaan si nolol ugu suurto gasho. innaga da quraanka hore inoogu sheegay biyuhu inay yihiin asaaska nolosha. walaalayaal run ahaantii wasaaraddan qofka loo magacaabay waa qof culays weyn la saaray. waxaase taa barbar socota waa meel fursado badan oo wax laga qaban karaan ay ka jiraan oo hadda beesha caalamka iyo dawladduba hore ay isula meel dhigeen inta wasiirku joogay ahmiyadda meeshan ay leedahay. waxaa la rabaa in 100 milyan la geliyo si Soomaalidu ay uga baxdo abaartan ragaadisay ee soo noqnoqonaysa. wasaaradda cimilada oo dhawaan la aasaasay biyada iyo ka hortagga arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada iyo idinku iyo tabeeraha iyo kuwa kaleba waxaa la rabaa inaad si dhow u wada shaqaysaan. walaalayaal xilliyadii hore mar aan wasaaradda beeraha tegay mas-uuliyiinta halkaa jooga waxay ii sheegeen
in ilaa milyan iyo badh Soomaaliyeed ay manafacadsan jirtay jinka webiyada Soomaaliyeed oo kaliya beeraleyda haddana dadkii meelaha ugu anfaca badan dalka ku noola ugu barwaaqaysan ayaa barakacyaal badan dadkaasina idinka idin sugaya dabcan waxay u baahan tahay aqoon iyo hal abuur cusub oo aad ka soo dheeganaysaan adduun weynahan xaaladaheena oo kale ku nool sida ay ula macaamilaan ama ula falgalaan duruufahan jira waxaan ku rajo weynahay inaad kaashan doontaan aqoon-yahanka Soomaaliyeed iyo kuwa meelo shisha ka yimiba si aad xulul waarta ugu heshaan xaaluf daaqa iyo duruufaha ka jira Soomaaliya maanta waxaan xasuustay intaan halkan fadhiyo ka fikiray nin wasiir ka ahaa dawladda Puntland maamulka Puntland oo wasaaradda cimilada biyada inuu joogo jamac Ali Warsama la yiraahdaa ayaa inihii uu joogay isaga iyo raggii meesha ka shaqeynayay waxay hirgeliyeen iyo ka bacdiba waxa la hirgeliyay biyo xidheeno kharash badan aanu ku bixin oo laga hirgeliyay bariga fog abaarihii bari dhaweyd dhacay markay ay dhaceen xoolihii laga kaxeeyay Cadaado iyo Dhuuso Mareeb iyo hawd guntii laga keenay iyo kuwii Togdheer iyo Sanaag iyo Hargeysa cirifyadeeda laga keenay dhammaan waxay ku badbaadeen hal abuurka la sameeyay bandarbeyle inay meesha ahayd baan u maleynayaa bas adigu bariga hay'ad yar baa caawisay laakiin biyo xidhanadii ay sameeyeen naf iyo dadba way badbaadiyeen marka khibrad kala duwan ayaa ka jirta waxaad arki doontaan waa cajiib ah warbaahinta waxaad ka arkaysaa dooxii dacar buruq waxaa jira dooxyo fara badan oo aan webiyada ka dhicin oo dad iyo dunyaba qaadanaya soo ma aragtaan afar bilood ka bacdina abaar ba'an ayaa haysata horta sawirkaasaa la rabaa inuu halka idinku dhegsanaado waaba dawladda maamulka Soomaaliland dooxii waxbayba ka qabteen waa dhiseen bari dhaweyd baan u maleynayaa laakiin biyaha daadmareed iyo buuraleyda Itoobiya ka yimaada ama buuraha Golis say u socdaan bay badda galaan horta wax yeella mooyaane wax tar dadka uma laha arrimaha biyo xidhanka biyaha marka la xidho ma uuna in biyo la helaye waxa isbedelaya degaankii dhirtii noloshuna way isku wada xidhan tahay marka biyaha la waayo waxa la waayay cawska ugu yar waxa la waayay cayayaanka ugu yar waxa la waayay xoolaha duurjoogta ah waxa halis galaya kuwii la dhaqanayay nafti baa halis galaysa nolol oo dhan baa halis galaysa insha Allah ta'ala xagga xirfadda iyo aqoonta u guura waa jiraan waxaan hubaa wasaaradda walba waxa jooga raggii iyo hablihii hormuudka ka ahaan jiray berigii dawladdu ay shaqeyn jirtay waxa loo baahan yahay kuwaana in la dhageysto kuwa cusub oo fara badan la tababaro arrimaha tababarka iyo farsamada xirfado gaar ah nin aanu saaxiibanahay oo la yiraahdo Maxamed Nuur Cadde oo engineer ayaa wuxuu iga sheekay shaqadii u horeysay helay markuu injineeriyada ka baxay wuxuu yiri waxa la ii dhiibay wax lagu cabiro luuq iyo meelaha webi bar dheeriye baa la geeyay meehayd waxa la yiri biyaha webiga ayaa la rabaa 6 bilood soo socota inaad aroor walba cabirto ma aqaan idinku inaad hadda dadkii webiyada ku badbaaba lagu ciyaaray xilliyada qaar garoonku bareed bay noqdeen halis bay nolosheeduna ku jirtaa aqoontii xirfadlayaasha lagu tababari lahaa waan ogahay xog oo dhan waxay idinka imanaysaa maxay ahayd FAO iyo international hebel iyo agaasimuhu wuxuu iga warramay run ahaantii yoolalka ay leeyihiin in meteorology iyo saadaalintii iyo cilmi baaristiiba ay damac ka leeyihiin anana wasiir waan idinku garab galaynaa insha Allah ta'ala ilaahay idinkuma ceebeeyo xilka culus waxa la idin igmaday noloshii ummadda Soomaaliyeed xoolaheeda iyo dhammaan duurjoogtii iyo wixiina biyo hadaan jirin iyana soo noqon maayaan marka dalaalka hal la muujiyo aad baan uga mahadcelinaa wasiirkii hore iyo howlwadanadii iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradii wasiirku wajibu u yahay laakiin xubnaha iyo
iyo injiinada shaqaynaya waa shaqaalaha weeye waanu mahad celinaa dhammaantood waxaana guul baan u rajeynayaa wasiirka iyo howlwadan halkan jooga waa mahadsantihin